ciyaarahan oo sidii loo madlanaaba ka furmaya garoonka weyn ee lagu magacaabo NFC ee ku yaala magaalada Amstelveen ayaa iyagu waxa ay isugu yimid oo ay dhex mareen 8 kooxood oo ka dhisan guud ahaan wadanka Netherland kooxahaas oo iyagu kala ah Hirda, Vlaardingen, Den Haag, Alphen aan Rijn, Hoorn, Den Bosch iyo sidoo kale labada kooxood ee kala ah Dordrecht iyo Van Rij waxaana ciyaarahan ay bilowga hore ay ku bilowdeen dardar iyadoo ay soo qaban qaabisay hay'adda ka shaqeysa horumarinta waxbarashada iyo dhinaca isboortiga ee magaceeda la yiraahdo Hirda inta aysan ciyaarahan iyagu sida wadajirka u dhexmariyay 8 naadi oo iyagu ka wada dhisan guud ahaan wadanka Netherland waxa kelmado kooban oo dardaarana ciyaaryahanadaasi halkaasi uga jeedisay agaasimaha hay'adda Hirda Faaduma Maxamed Faarax oo iyadu ku dheeraatay dhiirigelinta dhalinyaradii halkaasi isugu timid waxaana kamid ahaa erayadeeda marka waxa la rabaa in idinka iskaashatiin ee noqotana macnaha tournament ay isku aragtaan isku barataan af Soomaali ku wada hadashaan afneedan ku wada hadashaan ogaataan macnaha maxaa inta ka dhacay meelaha ka kala imaateen waa meelo kala fog dad badan waxay ka imaadeen Dordrecht, Vlaardingen, Tilburg maanta ma imaan Breda xataa inay imaatay ahayd iyo macnaha meelo fog laga imaad laakiin waxaan ahay Soomaali inaan ahay dadka marka waxaana dhinaca kale marka laga tago kooxdan inay ciyaarayaan kooxaha halkan isugu yimid lagu maamuusayaa sidoo kale in maalinnimadii shalay ay ku beegneed 15 May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL laguna xasuusto taariikhda dalka Soomaaliya inay kaalin weyn ku lahaayeen xurriyadii dalka Soomaaliya ka yagaleelantay sanadii 1960 markii ay bilowdeen ciyaarihii wareegga koobaad ay isku arkayeen 8 kooxood iyagu soo xaadirtay maanta garoonka NFC marka laga reebo 2 kooxood oo iyaguna ku qornaa liiska oo ka dhigayo 10 kooxood laakiin aan soo xaadirin waxa durbadiiba muuqatay inay dardar xooggan ay iskula soo baxayeen koox walibana awoodeeda ay halka ku soo bandhigaysay iyadoo dhinac kastana laga arkayay ciyaaryahanada Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Holland ee shalay halkaas ku ciyaarayeen inay awood ciyaareed aad u heer sareeyo ay ku soo bandhigayeen laakiin nin waliba tabartiisa ayaa meesha ku reebaysay waxa muuqanaysay in wareega koobaadba durbaba ay ku harayeen kooxaha iyagu u muuqday in uu itaalkoodu ka reebayay inay hantaan koobkan dhex yaalay 8 kooxood ee halkaas isku arkaysay waxaana kamid ah ciyaaryahanada kooxihii ka haray wareega koobaad amaba ku haray Ali Saciid oo ka socday kooxda Den Bosch oo wareega koobaad itaalku kula haray waxaan u kaleefisay maadaama aniga aan ku cusubnaay systemkan oo lagu qabtay magaalada Amsterdam marka qofka marka oo mataqaana oo koow ay u tahay baroonigiisa ama mataqaana system uu ka qayb galay inuu soo dhiso oo mataqaana tababar ama train oo soo sameeyo marka aniga arintan kadiisa inoogu imaatay dabcan waxa jecelnahay sanadka dambe inaan mataqaana soo dhisno mataqaana ciyaartii ugu dambeysay waxa iyagu isugu soo baxay labada kooxood ee kala ah Hirda iyo kooxda kale ee Vlaardingen oo iyagu kamid ahaa labada kooxood ee ugu awooda badnaa ciyaartii saaka ka socotay garoonka weyn ee lagu magacaabo NFC waxaana ciyaartu waxay dardar ku socotay markii ugu horeysay ciyaaryahan ka tirsan kooxda Hirda waa ciyaaryahanka Liban lagu magacaabo u suurta gashay inuu shabaqa kooxda Vlaardingen ku hubsado goolkoodii ugu horeeyay taas oo ka dhigtay hogaanka in ay kooxda Hirda ku qabato gool halka Vlaardingen iyagu markaasi aysan wax gool ah ku lahayn iyar kadib waxaadna suurta gashay in ciyaaryahan kale oo ka tirsan isla kooxda Hirda shabaqa kooxda Vlaardingen ku hubsado goolkoodii labaad oo ciyaarta u bedelaysay natiijadeeda inay noqoto 2 gool iyo waxba laakiin markii uu bilaabay tababaraha kooxda Vlaardingen inuu gaafuriga aan lana hadlay ciyaaryahanadiisa sidii ay isaga soo gudi lahayn gooyashaas ayaa waxa suurta gashay ciyaaryahan ka tirsan Vlaardingen inuu isagana sida imika muuqataba ku hubsado goolka kooxda Hirda goolkoodii ugu horeeyay oo ciyaartii ka dhigaysay 2 gool iyo hal oo labada gool ay lahayd kooxda Hirda halka goolka ay lahayd Vlaardingen albiter ayaa imika sida muuqataba ku dhawaaqay inay daqiiqadihii ciyaarta loogu talagalay in ay idlaatay sida darteedna kooxda Hirda ay iyadu noqotay kooxda hantisay goobkii dhex yaala 8 kooxood ee ka dhisan gudaha dalkan waxaan intaas kadib la guda galay sidii koobka loo guddoonsiin lahaa Daahir Cali Barrow isagu kamid ah saraakiishii ururada bulshada rayidka ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya imika ku nool wadanka Holland ayaa isaguna bixinayay abaalmarinada loogu talagalay in la guddoonsiiyo kooxdii hanatay koobkan ciyaaryahankii sidoo kale ugu wanaagsanaa oo la siiyay ciyaaryahan ka tirsan kooxda Hirda sidoo kalena ciyaaryahankii ugu goolasha dhalinta badnaa ayaa isaguna waxa uu helay ciyaaryahan ka tirsan kooxda Vlaardingen intaas kadibna waxaan wareysi aragtidooda ku aadan ciyaarta sida ku soo dhamaatay weydiinay labada ciyaaryahan ee Kennedy iyo Liban oo ka wada tirsan kooxda Hirda
runtii Cabduul Gareer waa maashantahay dhamaan guddiga iyo ururka koobka soo qaban qaabay inta waa u mahad celinaya marka dareenkayga maanta waxaan dareemayaa inuu aad u kacsan yahay oo faraxsanahay maadaama koobka aan ku guuleysano waa runta kooxdan in badan iska hor imaanay maanta oo kaliya laba ciyaar iska hor imaanay ciyaartii koowaad draw galnay tii labaad isku soo laabanay finalkana wixii banooni anaga markaas oo nagu jiray iyo wixii aad diyaar u ahayn waa qabanay hawsheena waa gudanay maamulkii soo qaban qaabiyey ciyaarahan ay 8 kooxood isaga hor yimaadeen garoonka NFC ayaa iyagu tilmaamay inay ugu soo dhamaatay sida ugu tala galeen waana tan Faadumo oo iyadu ah agaasimaha hirda oo arintaasi ka hadlaysa ciyaarta maanta horta waxaan u soo qaban qaabinay macnaha 10 kooxood ay soo qortay oo ciyaarta ka qayb gashay 8 kooxood ay imaatay ciyaarta si fiican ay u dhacday waxay ahayd ujeedadu waxay ahayd sidaan awalba u sameyn jiray in dhalinyarada Soomaalida isku bartaan isku imaadaan isla ciyaaraan dhalinyarada meeshan ku kortay iyo kuwii kalaba marka maanta inta macnaha ciyaartu waxaan arnay in si fiican u socoto wax yar dhacay oo macnaha accident yar oo qof kamid ah ciyaartooyda inuu jabay laakiin si fiican ay u dhacday qof walba si fiican u ciyaaray kooxaha dhan ciyaartooda way wada fiicneed Cabdiweli Ibrahim Garyare Universal TV Amsterdam